celinayaa soo dhaweynta sidoo kale waxaan ka mahad celinayaa niyad samida kelmadaha aad iyo aad u qiimaha badan muuqaalka wanaagsan ee tilmaamaya midnimada iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyo dawladnimada loo wada dhan yahay yaan ka mahad celinayaa aad iyo aad madaxda dawladda inta joogtay inta maqanba waa ku mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo qaybihiisa kala duwanaayo dhan ay joogaan sidoo kale labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si gaar ah anigu aan ka tirsanahay si gaar ah ayaan ugu sii mahad celinayaa ayaguna sida weyn oo maxaan ku yiraahdaa qadarinta la soo dhaweeyeen wax badan laga hadlay hadaladii halkan laga yiri oo dhan hadalla aad iyo aad u qiimo badan ahayd dawladnimada sideedaba wax la wada leeyahay waaye wax dad gaar ah ay leeyihiin maaha dawladnimada xilku iyo mas'uuliyadda maalinba nin baa joogo shalay annaga joognay maanta rag kale oo qiimo badan ay joogo birri kuwa kala sii joogi doona haddii alla yiraahdo marka xilku mar walba waa meerto culays ma laha laakiin mar walba wuxuu culays ku hayaa qofka markaas uu saaran yahay ayuu culays ku hayaa waxaan rabaa adduunyadu waa 3 maalmood la yiri shalay oo laga soo tagay maanta oo la joogo iyo berri oo iman doonta haddii alla yiraahdo shalay waxay leedahay waaye aragnimo wax ka barasho ku cibro qaadasho wixii dhacay ay leedahay oo wixii wanaagsanaa oo dhacana in la sii xoojiyo oo la sii qurxiyo u baahan tahay wixii si u gaabtay ama muxuu ahaa sidii la raba noqon waayana in dib inta loogu noqdo la qurxiyo u baahan tahay maanta marka waa maalintii qiimayntaas la sameeyay shalay maxaa noo hagaago waxaan aan sii xoojino war shalay maxaa naga gaabtay ama naga khaldamo waxaan aan soo hagaajino maalintii lagu ballamayo waaye si birri hagaagsan oo qurux badan ay u timaado waa intaas marka anigu intii aan dalkan joogay muddadii ugu dheereed ee dalka aan ka maqnaaday ee hayday 18 bilood la soo dhaafay mar waxaa jirtay waxbarasho aan banaan ku aado waxbarashadu 18 bilood ay ahayd daltabyada iyo hilowga dalka aan qaba awgiis koorsooyin dheeri ay waqti dheer inta qaataan 18 bilood 14 bilood ka soo dhigaa si aan u soo noqdo daraadii haddana muxuu ahaay wanaag iyo nabad iyo maxaan ku maqnaa xumaan kuma maqnayn cararid kuma maqnayn gurigaanan deganaan ka tagay sidii loo degan yahay waa u soo noqday waana deganaan doonaa daalira waxaan u imiday marka haddaatana waa ka dhawaajiyay in aan bal dadka Soomaaliyeed dhageysto inta xamar joogto iyo intii aan gaari karo gobolada idruufo isaamaxaanba inaan intaan tago dhageysto ka bacdina aan ka shaqeeyo oo aan waxaan juhdi iyo aqli iyo tabar leeyahay aan geliyo birri qurxoon birri sidii loo sii qurxin lahaa birri sidii u noqon lahayd maalin kale qurxan dawladnimadu sidii u sii istaagi lahayd dalkaani waa ka soo dhamaatay waqtiyo badan oo iska dhib badan iyo duruufo badan oo dhib badan uu soo maray maanta u malayn maayo in meeshii hadda in loo noqdaahay cid xiise u qabtaa ama jecel inay jirto marka dalkaani sidiisaba wuxuu u qaabaysan yahay dadkiisuna ay ilaahay hibo u siiyay inuu noqdo dalkan dal dimuqraadi ah oo maxaan ku raad dadkiisu ay ku nool yihiin dimuqraadiyaddu adduunka meelana inta badan institutions ama tandiim ama hay'ado dawladeed oo xoog leh oo aan siyaasadeysnayn ay leedahay oo dimuqraadiyada ilaaliyo oo haddii xukuumadu isbedelaan madaxdu isbedesho dawladnimadu isma bedesho sideedii u socotaa nooma dhisna annaga dhibka aan qabno waxay tahay waxaas nooma dhisna haddaan dadaalkeedii ku jirnaan dhiso haynaa muddo hore soo bilownay waa wadnaa waa maalin walba waxbaa ku sii darsoomay way dhismaysaa laakiin annaga dimuqraadiyadda aan maanta ku noolnahay oo waayihii la soo dhaafo aan ku noolayn oo waayahan hadda dhow ee soo socdaan aan ku noolaan doono waa dimuqraadiyada la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo negotiated ama dimuqraadiyada wada xaajoodka ku timaado dimuqraadiyada wada hadalka ku timaado dimuqraadiyada is-ixtiraamka iyo qadarinta ku timaado dimuqraadiyada is-ilaalinta iyo qof walba boogi dalkaani dhibaato badan iyo duruufo dheer uu soo maray booga badan uu leeyahay boogaha inaan la danqinin waa midda ugu horeyso oo la daaweeyo oo maxaan ku raahdaa la ilaaliyo oo la dhowro kadibna birri sidaanay qumanaysaa wax yeelnaa inta la yiraahdo saab marka loo sii dhaqaaqo waa ku soo caano maalin muddo dhamay soo socotay haddana waa socotaa waana sii socon doontaa haddii la yiraahdo baryahan dhow si aan u gaarno caalamku dimuqraadiyadiisa waxa ay ku dhisan tahay oo ah hay'ado dawladeed oo xoog badan oo aan siyaasadeysnayn oo aan siyaasadda isla badbedelaynin ee ayaga jooga
inaan helno marka safarkaasi safar gaaban ma aha kaasaan rabnaa annagu inaan waqti badanna gelino kana qayb qaadano dabcan siyaasad marka laga shaqaynayo isxaq xagasho iyo maxaa burcaraa la isku tuuro iyo maxaan ku iraahday baryahan social media wax la yiraahdo nagu soo kordhayo muxuu ahay aan loo nooleyn ya adduunyadii waaweyneed oo dimuqraadiyadeeda aan leenahay nidaam ay ku dhisatay hay'adaha ka qaylinayso oo waa fake news iyo waa hebel khalday inta laga yiri la leeyahay annagu waa ninkii yiri dabayl jirta inta la yiri adigu uma faruurid yiri oo kala waayo annagu waa u sii nugulnahay laakiin waxaan rajaynayaa dhalinyarada gaar ahaan iyo dadka maxaan ku iraahdaa energy-ga iyo tamarta hayo ee dal hadduu dumayo oday waayeelo sida anigoo kale oo 60 jir iyo inta iga sii waaweyn ma dumiyaan oo qoryo inta qaataan madaafiic ma ridaan waa dhalinyaro waxa hadii wax dumeen shal dumiye maanta hadii wax la dhisayna waxa laga sugayo waa dhalinyaro weli waa dhalinyaro marka dhalinyaradu hadii madfici iyo qorigi iyo wixii si un ay isaga maareen meel iska dhigeen yaani noqonin marka madfac kala waaye ma sahlana waxa Soomaalidu waatay hore uga maamaado tiri dhagaxna meel dhow ku dhaca dhawaqna meel dheer media marka waa dhawaq waaye telefoonadaas hadda la wada haayo kulli live waaye adduunyada America koon mid habeen 8 saaxiibinimo jooga xataa waa fiirsanaya oo waagiisi wali aanu bariino 8 saaxiibinimo maraya xataa ayaa waxa maanta dhacaya halka dhinac marka loo fiiriyo waa fiican tahay aad iyo aad yaani teknolojiyad khatara iyo dalalka waaweyn maraa jirtay media oo dalalka waaweyn oo xoog galo aqoonta la bisle ay haysteen oo dadkan kale aanay haysan maanta waa laga yimiday jaamacadii aad ku baranay gurigaaga adoo joogto newskaad ku fiirsanay khabarkaad ku gudbinay adiga dareenkaad qabtaad ku gudbinay dhigay laakiin rasuulka kaleey salaatu wasalaam xadiiskiisii ku yiri hadaad hadlayso wax fiican dheh hadaadan dhehaynin iska aamus marka waxyaabaha aan fiicnayn waa laga fiican yahay dadka Soomaaliyeed ee khabarka dhageystana ayaguna waxa waajib ku ah in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu wallahi website-ka qoriyay iyo Facebook-ga dhahayay iyo Twitter-ka lagu sheegay ma wax oo aad si faafiso kuma cafis inaad iska hubiso way fiican tahay dhalinyarada waxaan rajaynayaa dagaalka dhinacaas u jeediyaan waa maxay samaha wanaaga khayrka rajada ummadda inay muxuu ahay ay tabiyaan oo ay mar walba gudbiyaan wixii khaldan macnaha iyo dhaliil marna ma dhamaanayso waa la sheegaya laakiin ayada lafsadeeda si loo sheega leh waxa qaldan waxa naga gaabtay inaan kordhino qurxina rabna lafsadeeda si loo sheegay leedahay garbkiin Allah gala taas waa intaas annagu waxaan rabaa markan inaan ku celiyo waxa muhiimka waxay tahay birri haddii shalay ay xoogaa naga dhib badan oo maanta xoogaa ay naga dhutinayso war birri aanay naga dhutinayna birri aan u istaagno gudoomiye Kamaal hadda inta wuxuu ka sheegay doorashooyinka iyo nidaamkooda waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo qaabeynta mustaqbalka siyaasaddan ka wada dastuurku waa sidoo kale yaani culture dhaqanka dawladnimada ilaalintiisa iyo dhowristiisa waa sidoo kale waxaas inaan horumarino oo aan qurxino ayaan u taaganahay ilaahay idinkiis meeshaas aan ka wadi doonaa welina waa sidii hadaatay aan airportka markaan joogno aan u iriyo aniga waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inta badan inaan dhageysto marka dhageysigaas in badan aan dhageysto kadib wixii ra'yi iyo talo ah oo siyaasadda ku wajahan yaan dhihi doonaa intaan hadda irwaa intii odaytinimada ahayd mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo xukuumad leh oo baarlamaan leh oo dhaqan leh oo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan muxuu ahay rag iyo dumar leh dhalinyaro leh dhammaan waan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha badan diiran kalgacaltooyada iyo kalsoonida muxuu ahay aad ii muujiseen waa ka mahadcelinayaa aad iyo aad haddii aliira aniguna odaytinimada Soomaaliyeed iyo qurxinta dawladnimada Soomaaliya u taagan haddii aliira waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsantihiin